نتعلم نخطو نتقدم وننير الدرب إذا أظلم. نتعلم والعلم سفير ما بين معلم ومعلم. العلم مدينة إلهام لا يدخلها إلا ملهم. ودليل العالم أستاذ كم ربى أجيال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada casharadiina imtixaanaha ahaa ee ku saabsanaa nuun reeban iyo laba shaqal ama axkaamu nuun saakinati wa tanwiin. nuun reeban laba shaqal axkaamtooda waxaa noo soo dhammaaday. waxaan soo sheegay nuunta reeban iyo laba shaqalka inay leeyihiin afar xukun. xukunkood wuxuu ahaa al-idhaar, kan labaad al-idghaam, kan saddexaad al-iqlaab, kan afaraad al-ikhfaa. midka koowaad oo idhaarka ahaa ayaa noo soo dhammaaday iyo mithaaladiisa. maanta waxaan qaadanaynaa kan labaad oo ah al-idghaam. idghaamka waxaa loo qeybayaa labo: idghaam bigunna iyo idghaam bilaa gunna. idghaam gunno leh iyo idghaam gunno aan lahayn. idghaam waxaa la dhahaa sidasaba shay la dhexgeliyo ayaa idghaam la dhahaa. xarafka reeban ayaa waxaa la dhexgelinayaa xarafka ka dambeeya aa lagu shidaa, marka idghaam baa la dhahaa. markaas waxaa loo qeybayaa mid sanqada la gelinaayo oo la dhahaayo iyo mid aan sanka aan la gelinaynin lagu dhufanayo keli. maanta waxaan qaadanaynaa midka sanka la gelinaya tacriifaadkiis iyo ayaan qaadanaynaa. idghaam naaqis bigunna. idghaam naaqis, mid naaqis ah oo bigunna gunna la socoto. wayusamaa waxaa lagu magacaabaa naaqisan baa lagu magacaabaa. sababta maxay tahay? lidahaabi daati alxarfi, xarafka daatidiis tagataankeeda darteed baa looga magacaabaa. nudqan dhawaaq ahaan ay u tegayso. wa baqaa'i sifatihi, tilmaantiisa baaqi ahaashadeeda. wa hiya tilmaantana algunnatu weeyaan. waalgunnatu gunnada hiya gunnada sawtun waa cod rakhiimun jilacsan yakhruju ka soo baxaya min acla al-anfi, sanka meesha uga sarreysa. almusamaa kaasoo lagu magacaabo bilkhayshuumi, sanqada. gunnadu waa cod jilacsan oo ka soo baxa sanqada. wa miqdaaruhaa, gunnada qadarkeeda, zamanu sawtiha, codkeeda intuu joogaayo, xarakataani laba xaraka waay. walxarakatu, xarakada la sheegaya idana zamanu basti lisbaci, farta fidinteeda qadarkeeda waay. oo masqabdihaa, laabideeda. yacni fartaa saan aad u laabto amba aad fidiso iyadoo laaban ayaa halka xaraka lagu qadiraa. tusaale ahaan koowa labo waa labada xaraka intaas waay. koowa labo intaa ka dhehaysid aa nuunka reeban oo xuruuful gunna ku xigsatay amba laba shaqal reeban oo xuruufa gunna ku xigsatay aad ku dul istaagaysaa. wa calaamatuhu, gunnada calaamadiisa, xadfu sukuuni, reebkii laga tuuro waay. reebkii laga tuuro. min fawqi nuuni, nuunta korkeedan reebka laga tuuro. nuun maca tashdiidi, shadad maceeda lala qabo. maca tashdiidi xarfey annuuni walmiim, nuun iyo miim shaditaankooda maceeda lala qabo faqad oo keliya. xuruuful idghaam bigunna ama xuruuf idghaam naaqis bigunna waa afar xarfood. way noo soo socdaan afartaas xarfood. marka gunnada calaamadeeda waa in nuunta reebka laga qaado, xaraf ka dambeeya nuun iyo miim hadday ku xigsadaan in la shido. kuwii kale yaa iyo waaw shadkooda lama muujinayo, laakiin waa lagu akhrinayaa shadka. aan usii gudbo mithaalada.
حروف إدغام بغنة ويا نون ميم واو. انت سوح حروف إدغام بغنة نون تريبن واتن شيب كذا ولا تورة على مدوة. هدي ميم iyo nuun ay ku xigsadaan nuunta shida la saara miimkan shida la saara. ama yaa iyo waaw ayaga shidkood ma muuqanayo laakiin waa ku akhrinaysaa. aan akhrino marka faman yastamici الآن. انت قدرك aan kunta istaagay fiiri فمن يستمع الآن أمن يجيب. ميم كان هوري aan soo sheegay miim shidan waa lagu dahaa sidasba laba xaraka sida qunnadan oo kale asna lagu naynay laba xaraka ah. أمن يجيب نون إن نفعت الذكرى. إن نفعت الذكرى لن ندخلها أبدا. لن ندخلها أبدا. ميم من محيص. من محيص. من مال الله. من مال الله واو. من ولي. من ولي. من واق. من واق. بارك الله فيكم. هل كان سيكون جوجيني. السلام عليكم ورحمة الله.